taariikhdu waa 19 November sanada 2012 waa goor habeena oo ay saacadu ku beegan tahay 10 fiidnimo warfidiyeenka shanta Soomaaliya ayaa waxa uu booqasho ku tagay hoyga uu Cabdirashiid ka degan yahay wadanka Switzerland qaasatan gobolka Stans Cabdirashiid oo caawa marti inoogu ah kamarada warfidiyeenka shanta Soomaaliya ayaanu waxaanu ka qaadaynaa waraysi quseeya qaybo kala duwan kaasoo qaasatan u badan arrimaha siyaasadda ee dalka Soomaaliya oo ah dal xurnimadiisu uu qaatay sanadii 1960 isla markaana madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya uu noqday Aadan Cabdulle Cismaan sanadii 1960 ayaa wixii ka dambeeyay 1990 dawladii Soomaaliya ee dhexe kacaankii markay burburtay waxa Soomaaliya soo marayay siyaasado kala duwan oo waalwaalan kuwaasoo ay horkacayeen hogaamiye kooxeedyo odayaal qabqablayaal dagaal iyo siyaasiyiin isku sheegaya aqoon-yahano haddaba dawladii ugu dambeysay ee la soo dhisay ee ku meel gaar ahayd waxa hogaaminayay Sheekh Axmed taasoo lagu soo dhisay dalka Djibouti isbahaysi Asmara iyo midowgii maxaakiimta garabka Sheekh Shariif ay ku midoobeen ugu dambeyntii dawladdaasi markii ay soo gaadhay caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho waxa dawladdaasi ay la kulantay dagaal ay kala hor yimaadeen ururka ay saaxiibadu ahaayeen madaxweynaha Sheekh Shariif xarakat al-shabaab ugu dambeyntii dawladii Sheekh Shariif Sheekh Axmed doorasho ayay ku gashay caasimadda dalka Soomaaliya gudaheeda iyadoo ay kaabayaan ciidamo shisheeye oo ay ugu horeeyaan Burundi Uganda Ethiopia iyo waliba Kenya kuwaasoo iyagu la isku yiri AMISOM Sheekh Shariif Sheekh Axmed doorashadii uu galay waxa kaga guuleystay xilka madaxtinimada ee dalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kaasoo isagu hogaaminaya dawladda federaalka ku meel gaar dawladda federaalka rasmiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliya haatan waxaana Sheekh Shariif oo markaasi la soo shaqeeyay ra'iisul wasaareyaal kala duwan bedelkii maanta jooga ra'iisul wasaare uu soo magacaabay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaare Saacid waxaana sidoo kale Shariif Xasan oo isaguna ahaa gudoomiyihii baarlamaanka laba jeer dawladihii isaga kala dambeeyay Cabdullaahi Yuusuf iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyaguna bedelay booskiisii Professor Jawaari kaasoo isaguna ah afayeenka ama gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Jamhuuriyadda Soomaaliya haddaba maadaama warfidiyeenka shanta Soomaaliya caawa uu booqasho ku joogo hoyga uu ka degan yahay mudane Cabdirashiid oo u dhundaloola siyaasadda dalka Soomaaliya in badanna way arag u ah arrimaha Soomaaliya laakiinse haatan ah qurbaha ku nool wadanka Switzerland gobolka Stans waxaanu weydiinaynaa su'aasha ugu horeysa anagoo ku soo dhaweynayna microphone-ka iyo kamerada warfidiyeenka shanta Soomaaliya qodobo quseeya siyaasadda mudane Cabdirashiid ku soo dhawow warfidiyeenka shanta Soomaaliya marka ugu horeysa soo dhawow Cabdirashiid waxaad ku nooshahay wadanka Switzerland muddo gaaraysa 4 sanadood waxaanu rajaynaynaa in siyaasadda dalka Soomaaliya aad in badan aad la socotay una dhundalaasho marka ugu horeysa Cabdirashiid sideed u aragtaa isbedelka Soomaaliya ka jira dawladda cusub ee federaalka ee Soomaaliya loo gudbay ee laga soo gudbay ku meel gaarka uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sideed u aragtaa dawladdaasi wallahi kullee xilliga lagu jiro kullee dawladii hore ku meel gaar ay ahaayeen hadeertaana alxamdulillah waa dawlad waxay dawladeen oo macnaha ayada hadeerta heshiis kasta gali karto arrin kastana wax kastana afsha karto Cabdirashiid su'aasha labaad haddaan ku weydiino dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay ka kooban tahay qaab dhismeed ahaan
waxa loo yaqaano ama nidaamka loo yaqaano 4.5 kaasoo afka qalaad lagu yiraahdo 4.5 sideed u aragtaa nidaamkaasi qabaliga ah ee Soomaalida maanta dawladda federaalka Soomaaliya ay wax ku qaybsatay awoodaha maxaa kaaga muuqda ma dulmi baa mise mid ma arkaysa cadaalad ku salaysan aragtidaada siyaasadeed wallahi tasaddiyan ka rabo nidaamkaas kulliba dawladda way ka gudubtay hadeertan wixii la qaybsanayo kumayna qaybsano 4.5 shan xal caadi ah loo qaybsaday oo qaybtaas waa laga soo gudbay isqabsigii iyo wixii nidaamkii 4.5 kii waa dhamaaday haddana waxa lagu qaybsaday sida caadiga shan isla eg ayaa lagu qaybsaday maamulka mudane cabdirashiid su'aasha saddexaad aan ku weydiinayno waxay tahay dawladdan waxa ay ku dhisan tahay nidaam loo yaqaan federaal ama goboleysi waxaana jirtay dawladii hore ee Soomaaliya qaasatan dawladii militariga waxay ahayd hanti wadaag oo waxba lama kala lahan laakiin sidee kula muuqataa in Soomaaliya gobol loo qaybiyo oo gobol la isu xukumo miyaad isleedahay Soomaaliya sidaasi waa ay ku midoobi kartaa mar kale mise waxaad isleedahay Soomaaliya waa ay kala go'i doontaa nidaamka federaalka maxaa kaaga muuqanaya daliil iyo amaan labadaba wallahi waxa waaye ummad hadii islaayso waxa fiican in qof kasta ayaheeda meeshii uu joogo oo ka taliyo nidaamkana hadeertan marka waxa waaye in qof kasta meeshii uu degan yahay oo ka taliyo sidii macnaha oo waagi hore ahay waa laga soo baxay hadeertan waa laga soo gudbay xilligaas qof kasta gobolkiisa iyo nidaamkiisa inuu asii ka taliyo su'aasha afraad aan ku weydiinayno mudane cabdirashiid waxay tahay waxa jira dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa ka soo horjeeda urur diimeedyo ama urur diimeed aad ula dagaalamaya dawladdaasi mabda'iyan ka soo horjeeda ururkaasoo carabka hadaan ku dhifano noqonaya xarakat al-shabaab al-mujaahidiin sida awgeed sideed u aragtaa xarakat al-shabaab al-mujaahidiin sida ay ula dagaalamayso dawladda ma waxay kula yihiin kuwa nidaam ahaan qaldan in ay dawladda la dagaalamaan mise kuwa ku saxan in ay la dagaalamaan dawladda federaalka ee Soomaaliya taas waxa waaye mar hadii uu dagaal jiro kana soo horjeedo urur ama diimeed ha ahaado ama siyaasad ha ahaado xal sidaad ku heli lahayd ama dadkaas macnaha dadkaas macnaha nabadooda soo hirgelin lahayd waa inaad la heshiisid ama macnaha siba macnaha ilaa xad waa inaad macnaha la gorgortantid ama la heshiisid dagaal macnaha wuxuu gooyo waan naqaana waan soo marnay marka aniga waxay la muuqataa in macnaha bal wada hadal loo furo mudane cabdirashiid sida aan ka warqabno xarakat al-shabaab al-mujaahidiin dagaal ba'an ayay kula jireen muddo aan dhaweyn dawladda federaalka kumeel gaarka Soomaaliya ee la soo dhaafay iyo mid hadda taagan ee rasmiga ahba sidaasi awgeed sideed isleedahay in xarakat al-shabaab al-mujaahidiin wada hadal loola furi karo oo ay dawladdu wada hadal ula gali karto si loo soo afjaro khilaafaadka ragaadiyay dalka dadka Soomaalida wallahi waxa waaye kolba macnaha wali dawladda mayna wada furin wada hadal horta marka hore waa in la qoosto wada hadal kadib hadii laga furso waayo macnaha ha gaarto laakiin waa in marka hore wada hadal la fura la xaajooda wax kasta oo macnaha ama qof kasta geed kasta looga tagaa oo la xaajooda saasan aamsana laakiin mudane cabdirashiid xarakat shabaab waxay ku doodaysaa dawladda Soomaaliya uma madax banaana in qudheeda ay wada hadal furto waxay leeyihiin sida aanu ka helayno wararka xarakat al-shabaab warbaahintooda ama afhayeenadooda waxay sheegayaan in dawladduba ay tahay mid shisheeyuhu soo dhistay isla markaasna haatanba ay ku ilaalinayaan gudaha dalka Soomaaliya ciidamo shisheeye sida Burundi Uganda Djibouti Kenya iyo Ethiopia marka waxay ku doodayaan shabaab dawladdu xor uma noqon karto in ay anagu nala hadasho waa dad kor laga maamula marka hadii aad fiirisana hadalkooda waxa muuqanaya in uu gar yahay maxaa yeelay dawladda Soomaaliya qudheeda ciidan military ay leedahay oo difaacaya ma joogo oo waxa jooga ciidamo AMISOM oo waardiyeeya marka miyaanan la oran karin
dowladda uma madax bannaana in ay si iskeeda wada hadal ula furto Soomaalinimo in shabaab ay wada hadal ku qanciso gogolna ay la fariisato waxa waaye taas dantaadana waa laga wataa waxaan adduunka dhan ayaa looga haystaa Soomaaliya bas lama haysto adduunka dhan ayaa macnaha waxa waaye dadkan ay ku jiraan laakiin dantaada ayaa laga wataa iyo danta shakhsiyadda dadka meesha oo jooga iyo xaaladda ay ku sugan tahay marka lama fiiriyo tan kala guud lama fiiriyo lahashahaas koreeto laakiin waxa la fiiriyaa tan umadaada iyo tan taada maslaxadaada la fiiriyo mudane Cabdirashiid su'aasha xigta aan ku weydiinayna waxay tahay haddaan u baydho dhanka baarlamaanka waxaa jiray baarlamaanku meel gaara kaasoo gaadhay 550 ka badan marka loo fiiriyo Mareykanka oo 333 milyan oo dad lagu tiriyo ay baarlamaankiisu dhan yihiin 50 500 oo macni 50 uu dheer yahay kan Soomaaliyeed kaasoo dhawaan la kala diray marka baarlamaankii hore ee la kala diray waxa bedelay 275 xildhibaan kuwaasoo dib loo soo doortay qaarkood qurbaawi ah oo dibad joog ah qaarna aqoon-yahano ah marka muxuu kuula muuqdaa baarlamaankan in uu kaga duwan yahay kii hore ee 550 ka ahaa isbahaysiga ku dhisna wallahi kan waa ku macnaha ay dadkii ayaga soo xisheen kii hore tan wuxuu ahay mid xal ahay kan waa midka dadka ayaga soo xisheen hadda macnaha dawladda dhisay baarlamaantii caadi ah waaye dawladana soo cad macnaha dadka shacabka ayaa soo xishay kan isku mid ma marka kan iyo kii hore okay waxa jira gudoomiye baarlamaan oo cusub ayaa jira kaasoo federaal ah sideed u aragtaa gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka dalka Soomaaliya Professor Jawari kaasoo isagu aqoon-yahan ah ma isleedahay hanaanka hogaamineed ee baarlamaanka waa uu baahi tiraya oo macnaheedu si saxan ayuu u hogaamin doonaa mise waxaad isleedahay isagana wuxuu noqon doonaa mid hawshiisi ka gabidhacleeya wallahi tasadii ka warramaya gudoomiyaha waa gudoomiye cusub baarlamaankan waa baarlamaan cusub haddana hawsha ay wadaan waa la dhacsanaa war fiican waaya kolba sidii hore macnaha may dhici doonto baan u malaynayaa haddana kulliba si fiican bay hawsha u socotaa kullin aqoon la waayo si fiican hadda hawl meesha uu marinaya iska qabsigii horeetay iyo iska dabajiidkii horeeto wixii waa laga soo gudbay haddana hawsha meel fiican bay maraysaa wasiiradii wixii uu dhaaray kadib hawshiisii ay u gudageli doonaa hadduu alla mudane Cabdirashiid maxaa kaaga baxay ra'iisul wasaaraha cusub ee Saacid inuu kaga duwan yahay kuwii hore ee soo maray wallahi waxa waaye waxqabadkiisa horta way dhiman tahay kadana qolliga hawshiisa fiican laakiin hawsha markii ay gudagalaan ay wax qabtaan yaro dhig kana waa fiican laakiin hadda wali wax kuma sheegi karno haddaan u beedno dhanka iyo Kenya waxaa jira in dawladda Kenya ay Soomaaliya ciidamo u soo dirtay muddo laga jooga sanad ugu dambeyntii dagaal qaraad oo ay la gashay xarakat al-shabaab al-mujaahidiin ugu dambeyntii iyadoo kaalmaysanaysa ciidamo Soomaaliya sida jabhadda Ras Kamboni iyo qolo kale waxa ay ku guuleysatay in ay soo gaadho Kismaayo magaalo xeebeedka dekada leh sideed u aragtaa soo gelitaanka Kenya dalka Soomaaliya qaasatan qabsashada ay qabsatay magaalo xeebeedka Kismaayo gobolka Jubbada Hoose Kenya macnaha waa in ay kaga dambaysaa dadka deegaanka ah hawsha ayaga askale ayaga macnaha waa in ay kaga dambaysaa haddii ay faraha la gasho taas waxaan u aragnaa fargelin qaawan u aragnaa laakiin waa in faraha kala baxdo ay hawsha u diisha dadka deegaanka iskale ma isleedahay haddii Kenya baaqa aad u direysaan haddaad tihiin siyaasiyiinta Soomaaliyeed ama haddaad tahay siyaasi Soomaaliyeed baaqa Kenya aad u direysaa hadday ka dhaga adeegto in baaqaasi hadday diido uu ka dhalan doono cawaaqib xumo taasoo galaafata nafaf fara badan oo haatan adduunyada ku nool si qaldan hadday u maamusho meeshaas waxa waaye oo fargelin toos ay la soo gasho de waa iska celinhayaa dadkii horeetana waa iska celinayaan waa iska celinayaa mudane Cabdirashiid haddaan ka wareysano arrimaha bulshada sideed u aragtaa Soomaaliya isbedelada ka jira guud ahaan qaab nololeedka dhaqanka beeraha xoolaha
Soomaaliya maxaa kaaga muuqanaya saansaanta kaaga muuqanaysa waa maxay wallahi saansaanka iga muuqanaya hadda xilliga lagu jiro waa xilli aad u barwaaqaysan oo roob badan ka da'ay meelo badan barwaaqayeen alxamdulillah aad iyo aad ay u fiican tahay xilliga lagu jiro xilli ay ka fiican tahay wali soo marin alxamdulillah waxa waaye aad iyo aad baa u fiican tahay mirihi iyo wixii dhamaa iyo barwaaqadii iyo waa aad meel ka fiican oo hadda farta ugu fiican lahayd ma jirto mudane cabdirashiid haddaan si kale u dhigno kula kaftanno shakhsiyan adigu waxaa jira qurba joog fara badan oo siyaasiyiin ah kuwaasoo xilalka Soomaaliya u ordaya mustaqbalka marka sida awgeed adigu ma laga yaabaa ama ma dhacaysaa aragti ahaan adigoo dadweynaha u ifinaya inaad siyaasadda Soomaaliya mar aad ka soo muuqato ilaa heerka ugu sareysa madaxweynenimo xataa isu soo taagto sidoo dhaqsiyaha badan la ayaan jeclahay inaan maskaxdayda ku biiriyo wadankeena aan tago wax badan aan ka qabto aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa mudane cabdirashiid siyaasi Soomaaliyeed oo degan qaaradda Yurub qaasatan wadanka Switzerland ee gobolka Stanis oo aan hoygiisa ku booqanay annagoo ah warfidiyeenka shanta Soomaaliya waa mahadsan tahay mudane